بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله dhammaan madaxda xisbiyada warbaahinta dadka yacni maaragtay kulankan goobjoogka ka ah haween iyo ragba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد السلام maanta oo ay taariikhdu tahay 21 bishii 8 xisbiyo ka badan 20 ayaa isugu yimid halkan dood iyo falanqeyn kadibna waxay soo saareen war-saxaafadeedkan kulan ay isugu yimaadeen in ka badan 20 xisbi siyaasadeed oo ka dhacay xarunta xisbiga sinaanta midnimada nabadda ayaa waxaa looga dooday guud ahaan xaaladda dalka gaar ahaan maamul goboleedka Jubbaland. xisbiyada kulanka ka soo qayb galayna waxaa ka mid ahaa xisbiga Haldoor, xisbiga midnimada jamhuuriga Soomaaliyeed, xisbiga horumarinta, xisbiga midnimo qaran, xisbiga muwaadiniinta Soomaaliyeed, xisbiga sinaanta ammaanka iyo midnimo u ololeynta, xisbiga daryeelka Soomaaliyeed, xisbiga u hiili dadkaaga, xisbiga sinaanta midnimada nabadda, xisbiga aayaha shacabka Soomaaliyeed, xisbiga isbedel doonka Soomaaliyeed xisbiga samadoon, xisbiga shacabka Soomaaliyeed, xisbiga midnimada Soomaaliyeed, xisbiga dadka, xisbiga cadaaladda iyo badbaadada, xisbiga dalka iyo dadka, xisbiga shakhsiyadda iyo wadaniyadda Soomaaliyeed, xisbiga shaqaalaha iyo xisbiga cadaaladda iyo midnimada. dood iyo falanqeyn kadib xisbiyada ayaa soo saaray qodobadan: 1. in dhinacyada siyaasadda Jubbaland ay dhowraan madax-bannaanida iyo qarannimada Soomaaliya kana fogaadaan wax kasta oo gacan ka hadal keeni kara. 2. in dowladaha deriska ay faraha kala baxaan arrimaha u dhaxeeya dadka Soomaaliyeed. 3. in siyaasiyiinta labada gole iyo xisbiyada aan bahwadaagta nahay aysan kala taageerin walaalaha kala aragtida duwan. in dowladda federaalka Soomaaliya ay u istaagto hormuudna ka noqoto sidii caadi loogu soo celin lahaa xaaladda cakiran ee ka jirta Kismaayo, kana foojignaata muquunin iyo in awood la adeegsado. 5. in dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya ay il gaara ku hayaan waxa ka jira maamulka Jubbaland, kana baaqsadaan in ay ciidamada derisku ku hardamaan danta iyo dalka Soomaaliyeed gudihiisa si aysan meesha uga bixin garab istaagii ay u galeen dadka Soomaaliyeed. 6. ugu dambeyntii ayaa xisbiyada maanta kulanka ku yeeshay xarunta xisbiga sinaanta midnimada nabadda waxa ay dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya, siyaasiyiinta, ganacsatada, odayaasha dhaqanka, haweenka iyo waxgaradka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ugu baaqayaan in ay gacan ka geystaan nabadeynta iyo dhexdhexaadinta aragtiyada kala duwanaanshaha iyo cakirnaanta ka jirta Jubbaland, ogaadaana in madax-bannaanida iyo qarannimada Soomaaliya ay tahay lama taabtaan. waa xiriiryaha xisbiyada siyaasadda ahna gudoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga Soomaaliyeed Cali Maxamed Nuux. waxaan warqadan koobi ahaan u siinay wakiilka ergeyga qaramada midoobay Soomaaliya James Wan,
AMISOM, EU, IGAD, safiirada Australia, Belgium, Denmark, France, Germany, Ireland, Italy, Kenya, Netherlands, Sweden, United Kingdom, United States of America, Ethiopia iyo Djibouti. Wabillahi tawfiiq wa mahadsantiin.